السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal waa Ciise Maxamuud weeye. Waxaan ka hadlayaa hadda in yar dagaalkii maanta ka dhacay Tukarraq ereyadeeda. Ruuxii aan xog ka hayo aan jeclaysan inaan idinla wadaago. Dagaalkaas saad ku maqasheen runtii dagaal daandaansi oo Somaliland bilowday buu ahaa. Ilaa shalay dhowr goor bay weerar la qaadeen, kii ugu dambeeyeyna saakay qaadeen. Marka dagaalka dee berihan waynu iska sheegnay, wax iska cadna way ahayd Somaliland inay jabayaan. Dagaalkii ay Somaliland waa kusoo jabeen. Deegaankii horta la isku hayay Tukarraq waa laga qabsaday. Khasaaruhu waa badan yahay labada dhinacba. Gaadiid laga qabsaday Somaliland baa jira, iyo mid laga gubay. Dhinaca Puntland gaadiid laga gubay baa jira, iyo kuwa cadilmay, gaar ahaan waxaa la sheegay taangii meel goda ku dhacay. Dagaalku eryadii waa laga soo saaray, waxaa lagu celiyey saldhiggii ay markii hore kasoo duuleen, meel Gambadhe la yidhaahdo 15 kilomitir aragtii ilaa saacadoodu jirta ayaa dib loogu celiyey. Dagaalku halkaas ayaa maqribkii u maraayey. waxaa jirtay dagaalka dhowr goor buu joogsaday, sababta waxay tahay roobab baa jiray, roobab baa da-ayey. maqribkiina waa kasoo gaadhay, marka halkaas ayuu dagaalku ku joogsaday. ilaahay waxaan ka baryaynaa dee dagaalkaas in ilaahay qaboojiyo. waxaan tacsi u diraynaa labada dhinac oo wixii ku dhintay, dadkii halkaa ku dhintay maaragtay xabaddu maaragtay looga dhigay xaabada, ayaan tacsi u diraynaa labada dhinacba. waxaa isaguna ka hadlay arrinta madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isaguna soo maaragtay ka hadlay dagaalka, tacsina u diray dadkii halkaas maaragtay wax u gaadheen. sidaad halka ka arki doontaan kiliibkan daawasho wacan. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu walaac ka muujinayo dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool, kaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba. madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka, culimadiinka, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka haatan socda. waxaa nasiib darro ah inuu dhiig daato weliba xilli loo diyaar garoobayo gudashada acmaasha bisha barakaysan ee Ramadaan, ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waa in dagaalka Tukarraq si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo joojiyaa, wax walbana la mariyaa dariiqa wadahadalka, ayuu raaciyey mudane maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ah ee maalmihii lasoo dhaafay dirartu ku dhex maraysay deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag. waxa uu madaxweynuhu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday dagaalka Tukarraq iyo Ceel Afweyn, waxa uuna Allah uga baryayaa inuu dhaawaca si degdeg ah u bogsiiyo. waad aragtaan dagaalkan saan idiin sheegay waxaa kicisay Somaliland baryahan oo dhan daandaasi bay wadeen. nimanka kan arrinaan marka dambe aan idiin soo gudbin doono baa nimankan dabada ka riixaysa. ismuujin bay doonayaan. waxay kaloo doonayaan wadahadaladii Soomaaliya ay la lahaayeen in dib loo furo, wadahadaladaas oo iyagu joojiyeen. markii dambena dowladdu ka dhaga adeegtay markii ay maaragtay kiwi bay doonayaan inay khasbaan oo hadda joojiyaan. marka waxa weeyaan nin Faransiis oo aan dhowr goor oo hore idiin sheegay baa yidhi nimankan wax sameeya, meel walba isku qaada oo rabshado sameeya, mar Jabuuti isku qaada, mar Soomaaliya isku qaada, marba meel isku qaada. soo ma garan ninka falsafadii ninkii Axmed Siinayo ma qaadan, laakiin ninkan qaatay iyo Faysal Cali Waraabo la taliyo waa ninka isku dhow yihiin. nin calooshiisa oo shaqaysta oo Faransiis ah oo aan hore dhowr goor baan idiin soo gudbiyay. falsafadaasaa lagu soconayaa.
waad aragtaa muuse halkan uu isbihin bixinaya maanta waad wada daawateen halkanna waan idinku soo gudbinayaa waxa aan macquul ahayn oo dadku yacni horta dadkan reer somaliland nimankan maaha dadka waxaa nimankan mas-uuliyiinta isku sheegaya Soomaaliya horta waa dhaqtaqlayaal dhaqtaqlaha ma taqaanaa dhaqtaqlahu waxa weeye waa ninkaan hadalka u miidaandeeyay waxa afkiisa ka soo baxaya aan xisaabin wuxuu maanta ku hadlayay dee waa la wada dhegaystay awowayaal iyo aabihiin siyaad bare iyo wixii dee qulunimadii uu awalba wixii unbuu la soo shirtay marka nimanku waa dhaqtaqlayaal noocaasi bay u badan yihiin yani lama odhan karo dad xilkasa somaad kale dee ummad kuwaas horjoogayaal u yihiin oo mas-uuliin yihiin de wallaahi waxa weeyaan waa dhib weeye maanta wuxuu ku andaconayaa farmaajo ciidamada soo diro ciidamadii federaalka igu soo duubay waa doqonnimo taa ka weyni ma jirto yuu doonayaa inuu khaldo oo uu sheekeeyo ciidamada federaalka mise waxay beesha caalamku gacanta ku hayso ay og yihiin askari waliba meeshuu joogo sow maaha yuu khaldayaa yuu doonayaa inuu khaldo isaga wuxuu doonayaa inuu arrinta weyneeyo oo uu ka dhigo in Soomaaliya ku soo duushay laakiin waa u doqonnimo wax walba waa la ogyahay caalamka doraad waxaa la joogay Michael Keating baa la joogay oo u diiday oo si kasta ula hadlay Soomaadka marka waxa weeyaan dee arrimihiisana waa iska soo maaragtay horta kilibkiisa daawada waa kan بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliland ay weerar qaawan oo xooggan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada degan jiida hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socdo waxaan u sheegayaa qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jihooyinkii laga soo weeraray guulada taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen jabiyeen la difaaciyeen caalamkana waxaan u sheegaynaa in 3 bilood oo u dambeeyay 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaas ku soo rideen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyaga oo nagu soo xadgudbay 60 kiiloomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kiiloomitir intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dawladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxayna waanayaan dagaal hal laga foojinaado intaaba nabad baan u taageeray waa hadal wayse ka maarmi waayna soo weerar waxaan u sheegnaa ragga saakana soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afweynay oo aabahooda waxaan u sheegaynaa inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay kuwa axmoodayaan Morgan iyagan kuwa soo qaadeen waxaan u sheegaynaa inayna soo xusiyo dagaaladii 3 sano ka hor dalka ka dhacay iyo wixiina soo maray dhammaan shacbiga Soomaaliyeed waxaan ku waarinayaa oo aan ku boorinayaa inay iska taageeraan ciidamada qarankiisa oo dalkooda daafacaan meel ay joogaanba waad aragtaan Soomaa kaas waa kaan de waxaasuu ku hadlaya ninka ummadda ninkaas horjooga u yahayna waa loo yaaba xagga dagaalka khasaaraha runtii waxay soo gudbiyeen maaragtay qolada Puntland hal beebe bay soo gudbiyeen oo ay kuwii qabsadeena laakiin inkastay sheegayaan ilaa 6 inay qabsadeen 2 beebe iyo 4 cabdibile laakiin waxay unayna tuseen oo niman yaryar baan kolley moobeel kusoo duubay kana ina tuseen isagana daawasho wacan waa beebe Somaliland leedahay la qabsan waa beebihii laga qabsaday maamulka Isaaqland iyadoo ay ku cadeynayso in la jibiyay nimanka say ahaydna loogu garacay maanta ereyada tukarraq cadeyna waxa ku waa in maanta meydkooda la waday maanta cadeyna waxa ku waa meydkooda haweeyay aan saabinayn maadaama ay ku muuqato halka hadda meesha uu taagan yahay waa jiito hore ciidanka isagaa in lagu duwaan doono marka heesaa loo socda maanta in la jibiyey maamulka Isaaqland iyo hooyadood yaa
saasaa idin caddaynaysa in maanta meydkooda aad loo wadhay iyo raqdooda aad ayaan ugu faraxsanahay in maamulka Isaaqlaan sida bariiska maanta loogu wadhay jiidda hore ee Tukarraq waxaan leenahay waa ka soo qaybgal wanaagsan dagaalka waad aragtaa marka kaasuna waa kaa nimankan falsafada dibadda ka riixaysa waa sidaan idiin soo sheegay waa ninka calooshiisa shaqaysta ee Faransiiska ah warku ugu sheekeeyey marka meel walba isku qaada kaliib runtii waxaan hore u diyaar gareeyay video arrintaa ku saabsan oo aad la yaabi doontaan laakiin waxaa iga soo dhexgalay dagaalkana iga soo dhexgalay marka kan dagaalkan jeclaystay inaan soo qadimo ka kalena wuu diyaarsan yahay hadda markaan kan soo dalgaciyo waan isaga kasoo daba dalgacinaya waan idin tusi doona bal nimanka kan dhaqaaqlayaal inay yihiin iyo dadka kan horjoogayaasha u ah baan idin tusi doona soo maad garan marka ninka Faransiiska ayna waa kanay bal daawada. The problem is you're completely neglected by everybody, which is in total contradiction with all the declarations of democracy. But do not forget one thing, democracies are made by liars. Because being a politician and getting elected means you lie to your electorate, everywhere. Whether it's Mr. Trump or my own president, François Hollande, when you got elected, they're all liars. Otherwise you don't get elected. I mean, sorry, Minister. You're going to have to do your little bit of lying like everybody else. But once you're elected, then what comes is what you do. And now you're in a very unique situation because once more, you got it all right. All your inner workings are fine. And there is no plot outside. And yet, you're in great danger. And it's got like to be the main mission of your next president. The situation is to try, and frankly, there is only one way, blackmail. The world now is very worried about the possibility of what is happening into the Middle East turning into a major conflagration. I'm sorry, you're going to have to use that. And to say, look, we've been good guys, we're nice. We were an element of pacification, of smoothing, pouring oil on troubled waters. Okay, we did it for 25 years. That's a quarter of a century. That's a whole generation. Now we have these young boys who have grown, and for them the only country is Somaliland. They don't know Somalia. They were little children, or they were not even born when the war ended in 91. And we don't take care of them, they'll be Daesh tomorrow. It's your choice. And you, liars in Paris, London, and Washington, you have to wake up, or else you're going to have another pile of trouble. And frankly, I think you've got perhaps one little wedge where you can insert your finger into the soft part of the geopolitical landscape. It's called Djibouti. Djibouti is your entry point into trouble, and you have to go into trouble. This is the end of being nice guys. You're nice guys, you're finished. In 10 years, you'll really be Daesh, whether you like it or not. And you'll be Daesh out of these boys that, in a way, whether you want to or not, you will have lied to. Saying, yes, we have a country, it's going to be recognized, we have these nice democratic people, we behave exactly according to their values, we are nice people, eventually we'll be rewarded. And then it doesn't come. And when we are 25 and you don't have a job, then why not be for Mr. al-Baghdadi? waad aragteen soo maha musiibadaasaa dabada ka riixaysa falsafadaasaa la qaatay waxaa la isleeyahay meel baad ku maraysaan runtiina meel ku mari maayaan waa u khasaare waxa weeyaan waxyaabo badan buu isleeyahay indhaha maaragta caalamka kadib dagaalka ka soconaya sanaag oo kale matalan buu isleeyahay oo shirkado petrol ay sababeen dagaalka shirkado petrol baa sababay dadku waxaa la isku hayaa areada shidaal baa ku jira baa la yidhi beeluhu inay mid ku guulaysato bay doonayaan خير بان دير جينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.